sidee ayaad muwaadin Turkiga ku noqon kartaa adigoo marka hore qof ajnabi ah? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarnaamijkeennii arrimaha Turkiga. Maanta waxaan ka hadli doonaa laba qodob. Qodob waxa weeyaan sidee ayaad muwaadin Turkiga ku noqon kartaa adigoo marka hore qof ajnabi ah. Qodobna waxa weeyaan sidee ayaad adigoo adduunka meel kasta ka jooga aad ku qaadan kartaa shahaado ka soo baxday jaamacad Turkiga ku taala oo dabcan la aqoonsan yahay, caalamka oo dhan laga aqoonsan yahay. Qodobka koowaad waxaan ka hadli doonaa sidee baad baasaboorka Turkiga ama dhalashada Turkiga aad ku qaadan kartaa markaad muwaadin ajnabi tahay, aad Turkiga ku nooshahay. Shuruudo intee leeg baad ku qaadan kartaa? Maxaa lagaga baahan yahay si aad dhalasho Turkiga u qaadato? Imise sano ayay kugu qaadanaysaa? Maxaad ku waayi kartaa nationality-ga ama wadaniyadda Turkiga? Qofka muwaadinka ah ee Turkiga ah ee markiisa hore Turkiga ahaa ama gadaal ka noqday oo dhalashada qaatay Turkiga maxay ku kala duwan yihiin? Caqabada maxaa soo waajaha? Sidee ayaad uga bixi kartaa caqabada ku soo waajaha? Dhaqaale ahaan maxaa ka hortaagan oo kugu xiran aad ku heli kartaa marka dhanka dhaqaalaha laga eego, dhanka ardaynimada marka laga eego, dhanka guurka iyo marka laga eego, dhanka isirka marka laga eego, way badan yihiin siyaabaha lagu qaataa. Insha Allah tacaala waxaan kaga hadli doonaa xalqad kaamila. Qodobkan caawa ka hadlayna waxa weeyaan aynu awood saari doonaa adiga oo caalamka daafaha adduunka meel kasta ka joog, gurigaaga jooga, inaad heli karto shahaado ka soo baxday jaamacadaha Turkiga ee Yurub iyo Amerika iyo daafaha adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay. Waxaad u heli kartaa Hon Turk Academy page-ka aan shaashada soo dhigi doono ama WhatsApp numberka aan shaashada soo dhigi doono ayaad la soo xiriiraysaa. Waxaa jira programmo ay ka mid yihiin adult caring waxa loo yaqaano oo Yurub oo dhan lagaga shaqeeyo, child caring waxa loo yaqaano, ay ka mid yihiin computer, ay ka mid yihiin saxaafad, ay ka mid yihiin public management, ay ka mid yihiin accounting, ay ka mid yihiin business, ay ka mid yihiin waxa loo yaqaano financial accountska computerizedka oo dhan, ay ka mid yihiin urban planning, ay ka mid yihiin project management. Courseskaas ayaa Hon Turk Academy ilaa 2022 aan bixinaynay ayagoo online iyo class labadaba ah. Courseska waxay noo bilaabayaan haddii Ilaahay ka dhigo bisha February 15keeda. Muddada bisha ah waxaa socon doona diiwaangelinta koorsooyinkaas oo dhan. Haddii aad online u baahan tahay iyo haddii aad class u baahan tahay labadaba, waxaad kala soo xiriiri doontaa numberka WhatsApp-ka ah. Ardayga markaa wuxuu koorsooyinka ayaa toos lagu soo diri, koorsadaad u baahan tahay iyo qaabkaad ugu baahan tahay iyo fee-ga dabcan laga rabo ayaa macluumaadkaas ayaa halkaa laga siin doona haddii Ilaahay ka dhigo. Waa Hon Turk Academy page-kana waad booqan kartaa, koorsooyinka oo dhan way ku jiraan. WhatsApp-ka markaad fariinka nooga soo dirtana macluumaadka courseska aan bixino oo dhan iyo tuition fee-gooda iyo intay soconayaan iyo kuwa online-ka iyo kuwa classka lagu dhiganayo dhammaantood ayaa haddii Ilaahay ka dhigo aad halkaa ka heli doontaa. Asalaamu calaykum.